wasaaraddu runtii waxay wadaa dadaal lagu diiwaangelinayo ama diiwaangelinta ganacsiga lagu fududaynaayo loogu sahlaayo ganacsatada inay hesho adeegga ay u baahan tahay sida ugu fudud aan rajaynayno mustaqbalka in ayagoon wasaaradda imaan halka ay joogaan ay ka heli karaan ganacsiga shahaadooyinka ay isku diiwaangelin karaan wasaaradda halkaasna ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin waxaan rabnaa inaan Soomaaliya ka soo qaadno meeshii ay shalay maanta joogto oo ah dalka ugu hooseeya xagga fududaynta ganacsiga oo runtii aan rabno inaan dadaal ka muujino in Soomaaliya haddii ay dalka ugu hooseeyay muxuu ahaa maanta ay tahay inaan kor u soo qaadno sumcadda iyo sharafta Soomaaliya taasina waxaa fududayn kara ganacsatada Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay suuqa maanta aan joogno oo sanadkiiba 2 mar la qabto ama 6 biloodba hal mar runtii wuxuu ka mid yahay waxyaabaha fududaynaya ganacsiga waxyaabaha tusinaya in Soomaaliya ganacsigu ka socdo in waa dhinaca wanaagsan ee Soomaaliya marka waxaan rabnaa oo kale in ganacsatadeennu maanta dalkeennu wuxuu ku xiran yahay waa dal runtii wax soo galaan laakiin aan waxba dhoofin taasna waxaan rabnaa maadaama dalkeennu yahay dal khayraad fara badan ilaahay ku manaystay hadday noqon lahayd xag xoolo hadday noqon lahayd beer hadday noqon lahayd kalluumaysi in dalkeennu iyo khayraadka kale macaadiinta iyo shidaalku iyo ka mid yihiin in dalkeennu uu noqdo dal wax dhoofiya hadda runtii aad ayay argagax u leedahay meesha aan marayno ka ganacsiyahan adduunka meel kale waxaan ka doonine dal gudaheenna waxa aan ka soo saarno oo dalkeennu u isticmaalo waxaa aad uga badan waxa dibadda laga keeno marka waxaan ku dhiirigelinayaa marka ganacsatada halkaan isugu timid oo dhalinyarada u badan in la dhiirigeliyo wax soo saarka dalka in la dhiirigeliyo warshadaynta dalka wasaaradduna arrintaas qayb ayay ka noqon doontaa waxay ku bixi doontaa juhdiga ugu weyn waxaan dhiirigelinaynaa oo runtii aan rabnaa inaan hoosta ka xariirno inaan aad u dhiirigelinno ganacsiga gabdhaha halkaana lagugu sheegay oo runtii aan aad u soo dhaweynayno annagoo ogsoon gabdhaha Soomaaliyeed inay lafdhabar u ahaayeen qoysaska Soomaaliyeed si ay u jiri lahaayeen ganacsiga ay sameeyaan inuu yahay ganacsi aad u ballaaran ganacsi aad muhiim u ah bulshada waxaan rabnaa marka ganacsigaas in la kobciyo runtii ganacsigaas inuu kobco miro dhalo uu meel gaaro waxaan rabaa oo kale runtii inaan mahad ballaaran aan u celiyo rugta ganacsiga iyo warshadaha oo ganacsatada hoggaanka u ah oo runtii hoggaamintooda suuban wax badan ay u tareen ganacsatada runtii ay nagala dhexayso wada shaqayn aad u dhow annaga iyo ganacsatada isku kaayo xire isku xirkudooduna uu laga maarmaan u yahay in ganacsigeennu uu kobco runtii ugu dambayn waxaan rabaa oon halkaan uga faa'iidaysanayaa ganacsatada halkaan joogta si ganacsigooda uu midho u dhalo si hadafkii suuqaana aan u nimid maanta uu u noqdo mid ujeeddooyinkii loogu talagalay aanu ka gaarno dhammaantood kulley waxaan rajaynaynaa inay ka diiwaan gashan yihiin wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soo sidaas maaha ganacsatada halkaa ku soo bandhigayso muxuu ahaa bandhiga soo ma wada haystaan diiwaangelinta wasaaradda waa la aamusay ma waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim inay haystaan inta ka dhimana ay soo bandhigaan waxaan kaloon ku bogaadinaynaa ganacsatada runtii alaabaha ay soo bandhigayaan badeecadaha iyo adeegyada ay halkaa ku soo bandhiganayaan inay noqoto mid taya leh waxaa weeye qiimaha oo jaban keliya yaan la eegine waxa shacabka Soomaaliyeed ay gadanayaan waxa shacabka Soomaaliyeed ay isticmaalayaan in tayadooda aad loo hubiyo taasina waxaan is leenahay waa arrin laga maarmaana tayadu waxay runtii sahlaysaa dadka Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed inay helaan wax bed qaba inay gataan badeecad bed qabta inay gadato
taasoo sahlaysa caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba ka caawinayso dadka Soomaaliyeed ilaalinaysa badbaadinaysa waxaan kaloo rabnaa ayadana hoosta ka xiriiraynaa inaad dhammaantiin noqotaan canshuur bixiyaal haddaan canshuurta la bixin hadda ma la qaban karo adeegyada shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin hadday noqon lahayd waxbarasho hadday noqon lahayd wadooyin hadday noqon lahayd maxaa la jiray adeegyada kala duwan oo shacabka Soomaaliyeed u baahida weyn u qabo marka hadalka waa idinku dheereeyey waxaan u malaynaa inaan kolley suuqa ku soo wareegi doono waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim suuqaani inuu ballaarto waa suuq faa'iido weyn inoo leh wuxuu sahlayaa isdhexgalkii bulshada waa meel ay ku kulmaan sida aan arkayno ganacsatadii iyo dadweynihii Soomaaliyeed ee wax iibsanayay idinka ayaa la isagii dhex bixi doonaa waxaan rajaynayaa suuqan kan xiga inuu nagala soo qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaruhu nagala soo qayb galo mudane xasan cali khayre taasina waxayna tusaysaa kulley muxuu ahaa hadduu noo ballaarto oo meel madaxda dalka ay imaan karto uu noqdo in ganacsigeenna ay door weyn muxuu ahaa ay ka qaadan karto inuu sii kobco mar walba madaxda dalku waxay diyaar u yihiin oo wasaaraddeedu ay ka mid tahay iyo madaxda sare ee dalkuba inay ganacsada Soomaaliyeed ay dhinac istaagaan ganacsada Soomaaliyeed ay alxamdulilaahi la qabtaan ku kaalmeeyaan ku garab galaan kobaca dhaqaalahooda si dalka uu inoogu kobco dhallinyaradeennu ay shaqo u hesho dhibaatooyinka jira hadda oo ay ka mid yihiin amni darrada iyo faqriga iyo jahliga intuba hoos ay u dhacayaan haddii ganacsigu uu kordho